أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإيدي سلامي مال والبو جوجتان. Welcome back again to Ashraf Academic Online. kusoo dhawaada markale Ashraf Academic Online. haddii ay maalintii kugu horeysay oo aad soo booqatid waxayna ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto. Okay, waxayna soo cashiradeenii taxan ahay maanta waxayna qaadan doonaa cashir kale oo aad u xiiso badan, topic about importance of reading. macnaha muhiimada uu leeyahay wax akhriska. topic mawduuc about ku saabsan importance muhiimada of reading ee akhrinta. Okay, haddii aan guda galno, good morning subax wanaagsan. Good morning subax wanaagsan. Respect teachers macallimiinta xushmada leh. Respect teachers macallimiinta xushmada leh. And my dear friends iyo asxaabtayda qaaliga ah. And my dear friends iyo asxaabtayda qaaliga ah. Today maanta I am standing in front of you. waxaan taaganahay hortiina. Today maanta I am standing waxaan taaganahay in front of you. hortiina ayaan taaganahay to express si aan u qeexo my views fikradahayda about ku saabsan importance of reading muhiimada akhriska. Okay, good morning subax wanaagsan. Respect teachers macallimiinta xushmada leh. And my dear friends iyo asxaabtayda qaaliga ah. Today maanta I am standing waxaan taaganahay in front of you hortiina to express si aan u qeexo ama u muujiyo my views macnaha fikradahayda about ku saabsan importance muhiimada of reading ee wax akhriska. Okay, reading akhriska is a habit waa dhaqan ama caado. Reading akhriska is a habit waa caado ama dhaqan that can make us kaasoo naga dhigi karo all dhammaanteena a better person qof wanaagsan. A better person qof wanaagsan. Reading akhriska is a habit waa caado that can make us kaasoo naga dhigi karo all dhammaan a better person qof wanaagsan. Good. Okay, reading akhriska gives us wuxuuna siiyaa reading akhriska gives us wuxuuna siiyaa knowledge aqoon and inspiration iyo dhiirigelin. It makes us wuxuu inaga dhigaa smart qof aqli badan. smart xariif ama qof aqli badan ayaa smart la. Okay, it makes us wuxuu inaga dhigaa id waxay u taagan tahay reading kay u taagan tahay. It makes us wuxuu inaga dhigaa smart qof xariifa ama aqli badan. Okay, there are waxaa jira numbers. Okay, numbers macnaha tiro badan. There are waxaa jira numbers tiro badan. Examples tusaalo of a great people ee dadka wanaagsan. Examples tusaalooyin of a great people ee dadka wanaagsan who kuwaasoo emphasizes oo u adkaystay on reading akhriska from good ee wanaaga and successful life iyo guusha nolosha guusheeda. Good. Okay, there are waxaa jira numbers macnaha tiro badan. Examples tusaalooyin of a great people ee dadka wanaagsan who kuwaasoo emphasize u adkaystay on reading akhrinta for a good ee u wanaagsan and successful life iyo nolosha guusheeda. Successful life iyo nolosha guusheeda. Okay, reading akhriska helps us wuxuu inaga caawiyaa to relax inay ku istareexdo our mind maskaxdeena. Reading akhriska helps us wuxuu inaga caawiyaa to relax inay ku istareexdo our mind maskaxdeena. We try waxaan isku dayaynaa to visualize inaan sabirno whatever wax walba we read aan akhrino. We try waxaan isku dayaynaa to visualize inaan sabirno whatever wax waliba we read aan akhrinayna. Okay, this definitely qeexitaankani is a healthy waa caafimaad. Exercise ee wax qabad for wuxuu u yahay our mind maskaxdeena. Okay, aan ku soo celino. This definitely qeexitaankani is a healthy waa caafimaad. Is a healthy waa maxay
وعافمات good exercise وحقبت for وحو يهيبا our mind مسكحدينا reading وحاخرسك improves وحو صار أخذا our concentration power أود جوكتينتا concentration power أود جوكتينتا reading آخرسك improves وحو صار أخذا أما هرمريا our concentration power أود جوكتينتا good reading وحاخرسك reading books آخرنتا بوغاكتا reading books آخرنتا بوغاكتا can make us وحي إنك ديك كرتا feel كوا دريما happy فرحات sad murugo laugh جعل and so on iyo wixii la mid ah wali reading books akhrinta buugaagta can make us wuxuu inaga dhigi karaa feel kuwa dareema happy farxad okay can make us wuxuu inaga dhigi karaa feel kuwa dareema happy farxad sad murug laugh jacel and so on iyo wixii la mid ah when goortii we read aan akhrinayno books buugaag when goortii we read aan akhrinayno books buugaag we remember waxaan xasuusanaa a lot of things waxyaabo badan we remember waxaan xasuusanaa a lot of things waxyaabo badan like sida name of character magaca dabeecadda name like sida name magaca of character dabeecadda places goobaha important events iyo dhacdooyinka muhiimka ah important events iyo dhacdooyinka muhiimka ah and conversation iyo wada sheekaysiga this helps us waxay naga caawisaa to improve inaan sare u qaadno our memory xusuusaheena waan goortii we read aan akhrino books buugaagta we remember waxaan xasuusanaa a lot of things sheeye badan like sida name magaca of character dabeecadda places goobaha important events dhacdooyinka muhiimka ah and conversation waa sheekaysiga this tani helps us waxay naga caawisaa to improve inaan sare u qaadno our memory xusuusaheena okay intaas ayaan idigu soo talagalay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu khayr ayaan idiga tagay oo caafimaad ayaan idiga tagay intaan cashir kale xiiso badan kulmayno